jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan dalkan Britain khaasatan magaalada Cardiff ama gobolka Wales ayaa waxa ay soo abaabileen xaflad aad u ballaaran oo ay ku bixinayeen abaalmarinadaas oo ay ugu talagaleen dhalinyarada yaryar ee dhinaca waxbarashada fasalka 9aad ilaa iyo laga gaadho PhD holder dadka waaweyn ee hore wax u bartay iyo dhinaca sportsku ay sheegeen inay dhalinyarada reer Somaliland iyo kuwa Soomaaliyeed ay ka gaadheen guulo waaweyn oo wax ku oola iyadoo dhinaca kalena dadka dhinaca dhibirka wax ka qaba iyo kuwa taageeraba halkaasi lagu siinayay abaalmarinada waxa kale oo xusud mudan in halkaasi lagu siiyay abaalmarino saaxiibada dhow ee ay leedahay Somaliland ee ku jira dawladda tani Britain iyagoo oo sheegay in halkaasi lagu siiyay ragii ahaa MPyada ee hore uga howlgalay dhinaca ictiraafka Somaliland ee magaalada Cardiff iyo community-yada Somaliland iyo kuwa kaleba ee kalkaasina iyaguna horumarka wax ku oolka sameeyay haddaba dhammaan dadka halkaasi ka hadlay ayaa hadaladoodii waxa kamid ahaa sida tan got bigger. At the same time, the achievements of our young children, the academic achievement of our young Somali children also increased. So when we started this award ceremony and the preparation of it, it was unbelievable, the amount of nomination we received. We really didn't know that we're going to get, especially degree level. So? فرحي مصر إسماعيل وحنا المحسن سومالي هويدات ما شاء الله community we proud the way they doing ما شاء الله everything يسوي عيالكم support كرينا يعني وكبيرنا يعني صباح محمد كود بالي هذا مقعد كان فكس حطلنا وانت واحد شغله حفلة تقريبا اليوم achievement award عيالك نميلي GCSEs A levels يا جامعة levelها حاجة ما توقع يقول شيء صدق عرورة ما شاء الله من degree لما يصير يوم من GCSE يو A level Press the red button, yeah. Oh yes, it's pressed. Oh, okay. Scarlet. This is for what? Usually put us on the حفلة ما There you go. صف عام دعري أول سكين dadkii badan oo kasoo jeedinayay qaybgalna ka barayay sanadkii soo socday sidii qadimo ayarta Somalida iyo gaariyaan oo xumaan u dhaxeen macallin ban بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa cali xafladani long time member ka maqnay magaalada waa lagu soo celiyay ilaa 300 oo qof oo waalidiintii iyo dayartii iyo soo qayb galay aad iyo aad bay soo wanaagsan u dhacay from wixii qaadanayay shahaadada education-ka from SATs ila PhD sports iyo maca community alxamdulillah soo wanaagsan u dhacay oo ma sha Allah عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وفرسي محمد عبدي وحنا كنا هاي قام قبياشة ما أنت حفلتنا أنا خلنا نسوي من مجال كاريف ساوث ويلز وحنا كفر حسنا حفلتنا ومقعي لهم مقعاو ولش achievement awards ونقوم بحفلة سنة برضه مرة لقبت ورنا لو قبل شري إن أنت يسوي مادين ما أنت community Somaliland يا Somali بكلامه وما أنت هالكن يسوي ذي يميت مركلية والد عروض markaas sida carruurta ayada maxaan ku dadka awardka qaadino sheegayna waxay ka koobnayd waxyaabaha achievement-ka ama xagga waxbarashada iyo at the same time waxyaabaha kale ee sida community-ga dadka wax u qabtay oo kale carruurteedana aad u noqonaysa dhiirigelin waayo hadii jir media waxaan ku aragnaa waxyaabo negative marka isku dhigtusiyay maxaan ku raadin British media in lagu arko carruurteedii oo si fiican awards badan qaatay waana xagga sportka iyo xagga maxaan ku raadin waxbarashada salaam calaykum waxa cusudan magaalada Cardiff ay tahay magaalo aad iyo aad ay dadka degan ee community-yada iyo jaaliyadda reer Somaliland halka degan ay yihiin dad aad hore u maray aadna isugu tiirsan aynaawi Cismaan Ducaale iyo shaqale TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland London